waxa meeshaan shaqaaqaha ka socdana ehel isaysto oo dagaalamaya inay yihiinna ha lagu xisaabiyo garcadaawo meeshaan laga marrabo nin walba haystajiyo qoladaasna ka marrabno nimankii shabaab carrada u joogi jiray in noo soo hordhigaan ay garcadaawo in hordhigaan idinkana niman qatar ahoo malaha carrada si kale uga adeegi jiraan noo soo hordhigtiin ma rabno dad muslim ahoo warkoodu qabow yahay oo usha diir ku dibaayaan rabnaa horta in loo soo hordhigo waa ka xunnahay waxa meeshaan ka dhacaya wax saxana maaha qof Soomaali ah ama qof mas'uul ah ama qof deegaankan ka soo jeeda oo ku faraxsan ama jecel ma jiro wixii dhacay wax nasiib darro waay amal shaydaan waay intii samaysana talaaba laga qaadi doona diilah yiraahdo inta qalbigoodu xumaanta gashana ilaahay dartiisa uga baxo ilaahay ka baxsho annaga hal cala noo yaalaahay annagu col isku manni saan aaminsanahay waa hadda kaasna mar kale aan ka hadlaynaa ereyga nabadda leh erey oo qiimo badan ku fadhiyo waa oo qof kastana dantooda ku jirto diinta islaamkuna miisaan weynaysiis diinta islaamka kaliya ma ahan diimaha samaawiga oo dhan micnasi waxa uu yeelay sharaf u yeelay Soomaaliduna waxay ku maahmaahadaa yani rag gogoshiis waa nabad macnaha dadka rag waxa laga wadaa dad gogoshiis waa nabada naasna looga laha leeyahay haddana waxa la yiri markay nabad jirtaan nin walba laba nin leegya nooyahow nabadda hadda meeshaan ka jirta wixii laga soo maray waa ogtiin qiimo adag u bixin waajibaana wada saaran haddaan magaalo joogno iyo haddaan miyi joogno haddaan muqdisho joogno iyo haddaan aadayaal joogno haddaan meel kasta wada joogno saas inaan ugu dhigno waajibaana saaran annaga dadkan waxaan aaminsanahay inay wax kala leeyihiin ma aaminsanayn inay wax wada leeyihiin aan aaminsanahay haddii shalay hiiraan iyo shabeellada la kala jiray maanta hal maamulo hir shabeelle la yiraahdo ka dhaxeeya hal dawlad Soomaaliya dawladda federaalka ilaa ka dhaxaysa hal cadaway leeyihiin hal arrin ka dhaxaysa hadii meesha aanu barbaaqoodana meesha ku xigto waa barbaaqooyinaysa shaydaanka la iska naaro dadka deegaankan degana waa dad degan oo dulqaad badan oo akhyaar oo madaxiisa Soomaalina ku wada deganta hadii xagga la jirin lagu wada degan inta hadii la joogana in lagu deganaado la rabo annaga nafteena wadacaal jeeyto noogu weyn yahay shabaab hal iska qabtaan dhahan maamulay meeshaan maamulay ka ahna dadka waa handadi jireen ninkaana ii sheekeynaa wuxuu yiri marka meeshaan imaan nina noo yimid telefoon wata oo leeyahay inuu telefoonkan waxa lagu xukumay inuu san damin ee ii bitriyay anaguna gurigeyga korontana ma jirto waxa aan ku jaagreysana ma leh hadduu damin waa la dilaa waliba nimanka meesha saas u dhahay ma joogaan meeshaan dadkaas dadka gumaysan jiraan meeshaan ka saarnay meeshaas hadii laga saaray booskooda in la bedelo oo la dawladeeyo oo dadka la isku haayo oo xumaan hadii ka shaqeey jireen wanaag laga shaqeeyahay annaga dadkan gabnay hadaan nahay dawlad raalaha lahaad qof kasto dulmana xaqiisa inuu helo si islaamnimada iyo sharciga islaamka iyo sharciga dawladnimada leeyahay inuu ku heshaan ka shaqeynayna hadii ilaahay yiraahdo mana ogolin qof inuu dulmiso ma ogolin qabiil inuu dulmiyo ma ogolin la isku jaar falo haddii ilaahay yiraahdan maanta kadibna qabiil meel isbaaray oo oolayso ma jiri doonto warkayguna iska dhahmaahane waxaan jeclahay inaan fulino oo arrinkaas u dhab noqoto nimayo hadda meeshaan ku soo hormarnay waxa la idinku soo hormarana waa yeelama leeday bidaayo akhyaarnimo leeday bidaayo dulqaad leeday bidaayo marqaati ma doonto waa horta nagu qanca dawladda Soomaaliya ku qanca islaamnimada ku qanca dirisnimada ku qanca dad miir laha leeydku aqoon jiray sarafyada hal la joojiyo horta hal la tartiibsado hadii xisaabtankuna oo meel xun tago lama daawoobayo ninkaana hadda wuxuu lahaa inuu qofku hadoo waasho koonfur u waasha ee waqooyin aadimaha barina aadimaha hadda annaga nimankan khiyaarta hiiraan jira nimana ka xageeya tolkooda dhibay isku qabaano waxay leeyihiin dhul naga maqan waxba uu naga raadsanayo waxbay sheegaan ayaga naftooda waa laga sheegana inta hadii la sii jiran waa la sii kala sheegana horta koonfur loo socdaa qofay ku dhiganta ninkii koonfur jirow dadka u dulqaado waa lagu soo socdaa ya nabigiina ku saliya annagu waxa meeshaan taagan shaydaana ku dhex jiraan qabnaa ee dadkan waligiis meeshaan waa deganaa jiri waxaanay wax ka dhaxuna ka dhaxay jiri
saan isugu moqornaa jirin marka waxaasna waa u tagi doonaa hadii la yiraahdo maanta idinka aad ku soo hormarnay nabadaad ka shaqayseen iyo dulqaadkaad samayseen iyo sidaad isku xakameyseen iyo sidaad u samirteen ilaahay ajrayda ka siiyo khayrna allah idinku bedelo idinkuna naftiina xariga hadaad giijinta ka badatiin xarigad gadaal uga degantahay oo tarabto inuu go'o ma xarigad tarabto inuu go'o asaga ma isku oolay inuu dadkaan isku oolaan rabaa inay kala go'aan ma rabno sida isku jiri lahaayeen aal rabaa in laga shaqeeyo nabadoodan ka shaqeynayna samra waxaan maqli jiray ilaahay colkaaga ma dhigo nin habeenkiina codkaaga yaqaan maalintiina raadkaaga yaqaan oo laga wada diriskaaga oo laga wada nin ku yaqaan nimiga hadaad colowdaan ayaguna ma seexan karaan idinkuna ma seexan kartaan nin barwaaqo gaari karo beer fala karana ma jiro annaga waxaan deeqda islaamnimada dirisnimada dawladnimada walaalnimada na deeqda noo kala goy sidii islaamihii inta canuga ku murmay oo ninkii qaaliga intuu kala saaro ana kala saarahay wiilkan qabsaday hal kala jaray tii dhashayna waxay tiri wiilkan ilaahan qaba haddii ilaahay qadarna waa iimaanay tii kala kala goy tiri horta dadkii idinka dhalay idinka abgaala dadkan dhalay manima dhahay wiilkiisa la kala jaro nima dhashana kuma dhalna leeyahay horta dulqaad qoraga dhulka dhiga waranka dhulka dhiga warkii la yaqeeniyo adkaay oo garta aad ku dhacsan jirteen maanta ma joogteen maanta nabad in la dhagaan rabna xanal ku qaato annaguna ma jeclin wax hadda qabya oo hadda haddaan tagna aan sii soconin meesha inaan ka tagno ma jeclin dabcan binaadana la yahay xaqi xaqaba balaayo gacmayna waa joogtaa balaayo xalka aan rabin waa joogtaa ilaan dadkan iyo dalkaana la isku haystaa dawladda iyo inta dawladnimada rabta iyo shaydaanana isku haysta akhyaari maanta meel xun xaalkeenu marayaan la lagdin yaan leeydik hoosgil kuwaas inaan la soo hoosgilin annaga ka shaqeynayna ayagana u tagaynaa waan isku soo noqonaynaa waxaana xaajo waxa leeyahay ilaa sidii dabariyaad loo faydo ma fiyoobaatay in lagu fiyoobaadaan ka shaqeynayna nagu qaata ninkii dagaal raba cali jeetaa shaqo u haay oo shabaab rabaa inuu diro waa joogiya sababta meeshan loo keenay sababta meeshan loo keenay horta meeshaanoo shabaab jooga ma intayna ku sir lahayn inta ka kicino ma rabnaa shar ma ilaahay shar ku bedela annaga intii xumaantii shabaab meesha laga saaro midan mas'uul ka nahay ama wax ka qaban karna inay bulaasho ma rabno nimankii wali jafka joogo nimankii canshuurta u qoobi jiray iyo naagay qabi jireen meeshan joogaan in ilmahan la isku diro ma rabno nimankaas waa iska dhicinaynaa kuwa tuugada u shaqeynayna waa iska dhicinaynaa asalna waxa wixii dhacay waa dhaceen wax daboxun inuu soo dhicin haday dhacaan marka dambe aan leedku eedin idinka oo annaga nafteen eedda aan qaybta ugu weyn ka qaadano dawladnimada meeshan ka maqan dawladnimadana booskeedii waa buuxinaynaa shaqadii dawladana waa qabanaynaa hadii ilaahay yiraahdo raalli ahaada nabigeena ku saliya waa isku soo noqonaynaa noo samraana sidkiisa helaa la yiri waa mahadsantiin